maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday eedeysanayaal loo haysta dilkii loo geystay Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee degmada Hodan Cabdikariim Cabdiraxmaan Ciise Ragajoon. dhageysiga dacwadda loo haystay kiiska rag gaaraya 6 askari oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo ku jiro taliyihii ciidanka booliska ee degmada Howlwadaaga ayaa soo saartay marxalado kala duwan iyadoona maxkamadda ay ka hor hadleen raggaasi iyo guddigii baaristaasi kiiska waday. maxkamadda ciidamada ayaa taliyihii hore ee booliska degmada Howlwadaag gaashaanle Shucayb Cabdi Maxamed ku riday xukun 5 sano oo xabsi ciidan ah halka dable boolis Bishaar Axmed Cabdi oo baxsad ahaa isna lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. maxkamadda ayaa sidoo kale min 2 sano oo xabsi ah ku riday eedeysanayaasha kala ah Jamaal Isaaq Cali, Dhiblaawi Ibrahim Yusuf, Faarax Sabriye Afrax iyo Kulmiye Kaariye Cali kuwaasi oo dhamaantood ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliyeed. Cabdi Jaliil Cusmaan, warbaahinta Som TR TV, Ankara.